بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي قالقان جعلها يسود وادا ولاشن اسمه channel كاد قد داوانا سمو اسمه channel marka waxaan idin gacan furan ku soo dhawaada maanta waxaan idin wada qiso murugal oo ku dhacday gabar walaashina waxay noo soo jeedin doonaa wiil walaalkeena qisaas markaan dhageystay aad baan murugooday marka daawasho wanaagsan baan idin leeyahay wiil walaalkeena oo mubaarak la yiraahdo ayaan insha Allah inoo soo bandhigi doonaa marka daawasho wanaagsan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته daawada ku soo dhawaada barnaamijkeena qisooyinka nolosha qisadan maanta aan ka sheekeynaa waa runtii qisooyinka aadka iga cajabiyay ee markaan runtii aan akhrinayo ay laabteedu wax badan dareento qisada waxay ku saabsan tahay gabadh ayaa waxay la soo hadashay xarunta booliska waxay tiri waxaan rabaa ninka booliska ah ee Maxamed la iraahdo in aan la hadlo ninkii xarunta fadhiyay wuxuu la xiriiray ninkii booliska ahaa wuxuu gabadh noocaas ku rabtaa inay kula hadasho waayo habiir waan la hadlayaa gabadh run ahaantii waxaan rabaa inaan kula kulmo arrin yaroo ii gaarana inaan kala sheekaystaan rabaa oo nagaado arrintan cabasho ka gudbin karo iyo inaanan ka gudbin karayn waayo habiir iyo waad iman kartaa xafiiskaada ugu iman kartaa gabadhii baa ninkii xafiiskii ugu tagtay xafiiskii gabadhii markay ugu tagtay ninkii booliska ahaa ay waxay ku tiri runtii waan go'aansaday inaan arrinteeda adiga kuu sheego sababtu waxay tahay bari hore aan ku imi aniga iyo reerkayagu ayaad runtii si fiican wax noola qabatay marka arrintaas waxay ku dhalisay inaan arrin ii gaarana aan kala sheekaysto wuxuu yiri waa maxay arrinta ku gaarad rabta maanta inaad wax iga weydiiso waxay tiri 30 sano waan dhaafo oo da'daydu 30 jir way dhaaftay walina maan guursan sababta maad garanaysa wuxuu yiri waa maya wuxuu yiri sababtu waxa weeyaan bay tiri nin baa jira aan isku baranay shaqada ninkaasi markaan isku baranay xiriir baan wada sameynay xiriirkii markaan wada sameynay ayaa waxa dhacay waxa uu iga helay waxyaalo badan oo runtii aniga xaggayga aan ficnan inuu iga ogaado haday sawir noqoto haday videos noqoto adoo muuqaal aan ficnayn ayuu xaggayga ka helay ninkaasi marka hore anagoo si caadi ah u wada sheekaysanay ayaa muuqaal noocaas xaggayga uu ka helay ninkii markaa wuxuu sameeyay muuqaaladii uu iga helay aniga ay ku saabsanaa ee sirta ay ahaa ayaa waxa uu bilaabay inuu igu hanjabo inuu faafinayo hadii waxa uu raba aan sameyn waayo taasi waxay ku keentay ninkaasi inaan u xidhxidhnaado bari dhawto waxaan sir guursabay tiri nin baanu heshiinay ninkii markaanu heshiinay ayaan isaga u tagay waxaan ku warnay nin baanu heshiinay waan guursanayaa wixii hore aan ku wada soconay kuma jiro in sawirad wixii aad iga haysana walaal baabi wixii ugu jawaabay ma guursan kartid ninna ma guursan kartid haddaad guursatana waan ku fadeexadaynayaa wixii aan muuqaaleyn ka hayayna waan soo dhigayaa buu yiri qofkaana aad guursanaysana waan u dirayaa waxa tiri arrintaas waxay ku keentay inaanan guursan ilaa hadda wanigaa taagan oo maan guursan ninkaas u xirxiranahay naftayda iyo dadnimadkayga iyo waxayga oo dhanba ninkaas haysta maxaad igala qaban kartaa ninkii booliska wuxuu yiri wax badan baa kala qaban karaa laakiinse waxay u baahan tahay qaab official inaan cabashada kaaga qoro oo kadibna aan baarista bilaabo waxay tiri marka iyadoo runtii yara baqbaqanaysa waxay tiri wallahi waxaan ka baqanayaa in haddii aad baarista bilowdo hawsha aad gasho sidan hadda aanay si ka xun ay sheekadu noqoto laakiinse waa kugu soo warcelinaya way ka tagtay maalintii labaad bay soo noqotay maalintii labaad ba waxay tiri waxaan go'aansaday hawshii inaad gasho maadaama aad nin boolis oo wanaagsan aad tahay hawshii gal wuxuu yiri hawshii baan galay buu yiri waxaan ka qaaday ninka telefoonkiisii guriguu degan yahay macluumaadkii ninka ku saabsanaa oo dhan ayaan gabadhii ka qortay kadib waxaan sameeyay buu yiri ninkii waxaan qoray markaa warqadii muxuu loogu samanka ahayd loogu yeedhayay si ninkaas uu imaado xarunta booliska wax looga weydiiyo gabadhaas waxay sheegtay ninkii markii loo diray runtii yeedhitaankii uu aqbali waayay mabo imanba bale dhowr cisho kadib gabadhii baa soo hadashay waxay tiri ninkii hooyaday buu la soo hadlay waanu ifadeexadeeyo wuxuu iga hayayna hooyaday uu sheegay kadib waxaan ku yiri ninkii booliska ah labadiina waa ii kaalaya iyadii hooyadooda socota ayaa xaruntii booliska yimi waan la fadhiistay buu yiri islaantii baan dajiyay waxaan u sheegay inay wanaagsan tahay
oo aniga ay soo biday inaan wax la qabto de go-aan fiican ay qaadatay marka inaanay islaantu ka warwarin aanay inantana u cadhoonin adu islaantu way fahamtay arrintii waana ila qaadatay waxaana tiri ninkaa in lasoo qabtaan rabaa oo sharciga la mariyo waxay noqotay markaa wuxuu yidhi qofkii intii hore maan qaban karayn buu yidhi sababtoo ah waxa weeyaan dee sharciga marka la eego wax qofka booliska qofka wuxuu qaban karaa isagoo dembiga faraha kula jira haddii kale waa inuu maxkamadda warqad qabasho uga soo qaataa waxay noqotay markaa maadaama ninkii noo iman waayey warqad qabasho ah inaan dalbado oon maxkamadda ka dalbado warqadii baan helay buu yidhi warqadii baan ninkii kusoo qabtay ninkii markii aanu runtii aanu keenay maxaa jeelkii aanu keenay xabsigii ninkii markii aanu keenay ayaan wareystay buu yidhi ninku waa dafiray wax alla wixii gabadhaasi ku soo eedaysay uu dafiray wuxuu yidhi gabadhaa maba aqaanba gabadhaad sheegayso maba aqaanba aduu halkiibaa waxay noqotay cadaymihii inay adkaadaan wuxuu yidhi waxaan tegey baabuurkiisii uu soo kaxaysay baan u tegey baabuurkii baan fatashay waxaan isleeyahay markaa waa intaasood baabuurka ka heshaa telefoona iyo kaadhadh iyo waxaan dokumentigii cadayntii waanaad heshaa wuxuu yidhi telefoonadii aan ka helay baabuurka may ahayn iyo kaadhadhkiibaa kuwan uu gabadha ka soo qaraacaya may ahayn wuxuu yidhi ninkan khatar buu ahaa buu yidhi wuxuu sameeyey gabadha telefoonkan uu kala soo hadli jiray isagu maba laha isaguna magaciisa kumaba qorna telefoonka magaciisa waxa ku qoran nin shaqaalaha oo dalkaba ka dhoofo ka tegayba markaa ninkani already telefoonkan uu gabadha ugu hanjabayo ee sawiradii balaayada uu ku hayo dokumentiga uu ku hayo maaha telefoon isagu leeyahay qof tegay baa iskale isaga telefoonadu haysto waan baadhayo wax dhiba ma laha magaciisa ku qoran wax dembiyo galena kuma jiro markaan baadhitaankii sameeyey waxay noqotay marka arrin bilaa cadayna halkaa marka ay marayso oo sheekadii yara adkaatayoo dee ninkiina uu xidhan yahay ayaa waxay noqotay 4 saacadood baa dhammaaday haddii intaasi dhammaato sharci wuxuu dhigayaa qofkii waa in maxkamaddii dib loogu celiyaa oo loo xalaaleeya xadhigga wuxuu yidhi dubbaan xadhiggii baan dalbaday inaa loo xalaaleeyo 5 cishaana loogu daray 5 cisho markiina loogu daray ayaa waxaan baadhitaankii haddana ahaan sii waday buu yidhi waxay noqotay bal inaan cadayme ka heli karo ninkan gurigu deganaa ina aan tago gurigii baan usoo qaatay warqad runtii baadhisa gurigii baan ka dul degay guriga markaan waxaas leeyahay waxaad ka heli kartaa telefoono iyo kaadhadhkan uu imika qarinayo ee gabadhan uu ka soo qaraacayay ayaa laga yaabaa inaad hesho ilaa ninka waa nin khataroo waxaan aada uga sii taxadiriyay waxba ma yaalaanba wax kasta uu qariyay moobil ma yaalo laptop sawiro ku jiraan ma yaalo wax yaala male halkan aan ku hungoobay buu yiri arrintu halkaa markay marayso waqtigana uu dhayo 5 cisho kaliya maxkamaddu ii soo ogolaatay inaan ninkan aan sii hayn karo haddaan 5 cisho ka dhamaadaan way la sii daayaa arrinta halkaa markay marayso ururkaasi hayo ayaa waxaan go'aansaday buu yiri ninkan muxuu ahaayay kiiska ku jira iyo gabadha laftigeedii inaan isu keeno oo iswaajahaan waana qaab ka mid ah muxuu ahaay qaababka loo sameeyo baaritaanada gabadhii baan u yeedhay waxaan ku yiri ninkan aad runtii eeda ka sheeganayso kow waa la soo bandhigayaa bandhigaasaad ku cadaynaysa inuu isaga yahay marka ninkii baa la keenay rag fara badan oo kalena waa la keenay meeshii oo isaga u eeg iyadii baa markaa ka soo dhex saar gabadhii waxay socotaba ninkii way soo qabatay markay saa u soo saartay ay tiri ninku waa ninkan ninkii markii la soo saaray ayaa waxay noqotay inaan step labaad u gudbo labadooda inaan iswaajahaan oo ay sheekada isku waajahaan idana waa qaab kale wax loo baadho qofka dembiga galay iyo qofka eedaynaya ayaa markaa labadooda kaliya la isu keeno ayaa la wada hadla labadoodii baa soo keenay buu yiri boolisku markaa way dhegeysanayaan waxay rabaan inay ogaadaan bal midka wax ka yaran si noqdaanay khalkhal hadalkiisu gale wax lagu cadeeyo ama wax lagu qabto inay eegaan ninkii gabadhii baan soo keenay gabadhii baa ninkii arrinta ku qarxisay isna uu hadlay ninku waa nin kibriyaaniya wuxuu soo istaagay naanu kuma baaqaanba xagaad igu baratay weligay kumaan arag naamaano adigoo kale aanu la sheekaysan karaaba isla welida ninkaa ku jirta iyo siduu yahay adaa tacajubaya arrintii markay dhammaatay gabadhii ay soo baxday iyadoo aadan hiya jabsan ayaa kula dhimbala insha allah waynu heli doonaa xaqiiqada dhabtaa waynu heli doonaa adu waxay noqotay halkaa hawsha markaa marayso ee maalintii afraad la galay maalinta shanaad waa maalinta iigu dambaysa ninkaasi waa la sii daynaya maalinta afraad baan maraya waan warursanahay buu yiri anoo boorisa sababtoo gabadhan ninkan waan garanayaa buu yiri wejigiisa markaan soo eego inuu dambiile yahay inuu khaa'in yahay way ii muuqataa buu yiri
laakiinse waa inaan helaa caddayn la taaban karo oon maxkamadda ku horkeeyo sababtoo qaanuunka wuxuu dhigayaa hadduu kiisku criminal yahay waa in la caddeeyaa beyond reasonable doubt bay yidhaahdaan waa in la caddeeyaa shaki la-aan 95% kiisku waa inuu caddaada haddii kale maxkamadda ma horgeyn kartid caddayntii ma raadinayaa buu yidhi maalinta afraad anoo ku jira buu yidhi oo aada u niyo jabsan buu yidhi ayaa waxaa meesha yimiba nin inaan wata ninkiiba markuu saa usoo galay baa waxuu yidhi niyow inantanaan wadaa buu yidhi ninka halkan ku xidhan ee fahmi la iraahdo ayaa inantaydan ku sameeyey hadidaad isagoo ugu hadidaya muuqaalo uu ku hayo inuu ku fadeexadaynayo intaa ninkaasi markuu sheegay waan farxay buu yidhi sababtoo waxaana sidhi caddaymabad gabadhan ka helaysa iyada gabadhan cusube iyaduna dembiga uu ka galay ninkani caddaymay bay wadataaba gabadhii baan eegay telefoonkii ka wada xidhiiri jireen ilaa telefoonkuba isna waa telefoon kale waa nambar kale oo isna runtii oo qof kale leeyahay oo kiis magaciisa baan ku qornay wuxuu yidhi sidiiba broseski dib aanu mari oo telefoonkii baan raadiyey baabuurkiisiiba dib uga baadhay gurigiibaa laga baadhay wala waaya isla maalinta afraad buu yidhi haddana gabar kalaa meesha timi booliska oo ninka ku dacweynaysaa inuu iyadana uu muuqaalo ka qaatay uu ku fadeexadaynayo arintu halkaa markay marayso ayaa iyadana aan ku farxa markay timi waxaas lahaa waxay ku faa'iideynaysaa baadhista wax lagaba caddaymay inay kuu keento waan baadhayoo ilaa iyadana telefoono kale ayaabuu isticmaalaya hawshu markaa marayso oo saddexdoodaba caddayn la-aan aanu hayo ayaa maalintii shanaad la gaadhay oo maalintii ugu dambeysay maalintii shanaad markay duhurkii marayso ayaa meesha waxaa igu yimi inantii muxuu ahaay ugu horeysay ee ninku dembiga uu ka galay iyo hooyadeeda wada socda waan la fadhiistay waxay igu yidhahdeen wax fiican baad noo qabatay waa dadaashay intaad qaban kartay waad qabatay laakiinse haddii dee caddaymin la waaye adigoo ku mahadnaqayna islaantiiba waxay tiri ilaahayow waxaan ku weydiistay ninka qalbigiisa gob sida inantayda qalbigeeda u gubay kana dhig mid tamaniya inuu dhinto dhimashadana u diid habaarkaasi gabadh ninkaa ku tiri ninkii inanteeda dhibay habaarkaasi ku tiri ninka boolisku wuxuu yidhi intaa markay leedahay aad baan u gubanayaa buu yidhi aduu waan iska soo baxay buu yidhi casarkii baa la gaadhay waktigii la sii daynayay ninka sababto waa in la sii daaya waktigii lahayn kari lahaa ee sharcigu ogolaa wuu gaadhay waxaan usoo qaaday buu yidhi alaabtiisii uu meesha markuu xabsiga la geliyay laga qaaday ayaan usoo qaaday alaabtii markaan usoo qaaday buu yidhi ayaa waxaa dhacday buu yidhi warqad baan ugu dul qoray meesha warqad yar baan u geliyey warqaddii intaan u geliyey anuu aan qoray oo hadal yar aan ku qoray ayaan u dhiibay alaabtiisii markuu qaatay ee uu sii baxayo warqadiibuu saaw eegay uu akhriyey intuu saaw iisoo eegay buu yidhi yara si kibraaniya ayuu warqaddii saa iskugu duuduubay ayuu iska tuuray buu yidhi wuu iska tegay buu yidhi kiiskii bartii baa lagu xidhay buu yidhi muddo yar kadib buu yidhi muddo kadib dhowr sano kadib buu yidhi ayaa telefoon la isoo diray yaa telefoon isoo diraya xaruntii booliska markaanu waan ka wareegay oo meel kalean u wareegay buu yidhi markii telefoonkii la isoo diray baan qabtay waxaa lagu yidhi hebelow in xaruntii booliska joogi jirtay waxaa kuu taala kartoon sanduuq baa ku yaala ee soo doono waayaha baan yidhi waan tegay buu yidhi sanduuqii kartoonkii buuxay baan soo qaaday waa kartoon alabi ku jirto waan furay maxaa ku jira waxaa ku jira magaca ku qoran baan eeg ilaa magacu waan markiiba xasuustayoo waa ninkii dembiga hablaha ka geli jiray ee fadeexadayn jiray ayaa magaciisa ku qoraya waan eegayo waxaa ku jira kartoonka laabtobyo moobilo kaadhadh waxaasoo dhan ba ka buuxa wax allo waxaa caddayna ee aan u baahna inaan ninkaa maxkamad ku keeno ayaa kartoonka ku jira waan yaabay buu yidhi war ninkii maxaa soo kii dembiga dafiri jiray soo kan cadaymihii soo diray intaa markaan iri baa ninkii booliska ila jooga xaruntaan ku yidhi war niyo ninkaa kiiskiisa dib u baadha feelkiisii soo saara kiiskii haddaynu ku qaadina cadaymihii baa la helay nin boolisa markiiba ordayoo bilaabay inuu feelkiisii baadho anigoo kartoonkii hayay buu yidhi ayaan kartoonkii eegay kartoonkii markaan eegay warqad baaban arkayba warqaddii baan furay waxaa ku qoranba ninkii fatxi la oran jiray kiisaska badan hablaha ka galaaba ku qoran muxuu leeyahay waxaan kuu sheegayaa maxamedow waxaan kuu sheegayaa maanta manaan dhiman mana nooli waxaa igu dhacay xanuun ugu xumaa adduunkaa igu dhacay xanuun barar oo jidhkayga galay ayaa igu dhacay mana nooli manaan dhiman waxaan kaa dalbanayaa dhammaan dadkan dembiga ka galay waa kan aan kuu soo qoray caddaymahoodii
keliya maaha saddexdii hablood hablo badan oo uu ka galayna uu soo qoray wuxuu waxaan ka dalbanayaa dadka aan dembiga ka galay inaad reerahooda u tagto inaad iyaga u tagto ood ii weydiiso inay cafiyaan hadalkiisa maxaa ugu dambeeya hadalkiisa qoraal yar hadal baa ugu dambeeya hadalku ku soo khatibay hadalkiisa muxuu yahaynaa maalintuu sii baxayay warqadii yareedee aan wax ugu qoray hadalkii aan ugu qoray buu ku soo khatimay hadalkiisa oo maalinta maxaan ugu qoray waxaan ugu qoray in alladhina fatanu almu'minina walmu'minat thumma lam yatubu falahum cadaabu jahannam walahum cadaabu alxariq intaasuu ku soo khatimay isaguna hadalkiisii warqadii maalinta uu jeexjeexay ayuu ku soo xidhay hadalkiisii aad baan murugooday buu yiri isla markiiba waxaan bilaabay yiri inaan bal feelkiisii baadhno feelkiisii markaan baadhnaan isleena bal kiiskiisii had eegtaan warqad kalena feelkii ka helay maxaa warqadda kale ku qoran hebel 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 waxa uu dhintay taariikhda noocaasa ilaa ninkaniba wuxuu dhintay markuu feelkan ii soo diray 3 cisho kadib uu dhintay sanduuqan uu cadaymaha ku sheegay markuu ii soo diray 3 cisho kadib ayuu ninkan dhintay sidii bay kiiska aan ku xidhnay arintana ku dhamaatay dawada qisadan waxay ku soo dhamaanaysaa waxaad ogaataa haddii aad runtii garsoorka iyo systemka iyo xeralaalin iyo xisaabtan adduunka haddii aad ka baxsato xisaab kalena way jirtaa oo aakhiro ah taa horta waa inaad cadaaladda ilaahay aad ku tala gashaa mid kale meesha tala waxa weeyaan qof kas oo dumara oo ay isku dayaan dhalinyarta ama raggu inay u hanjabaan fadeexad ugu hanjabaan xalka ugu muhiimsan waxa weeye qofka kuugu dhow inaad u sheegto ha qarin haddaad qariso qofkaasi weligaa uu ku haysanaya addoon baad u noqonaysaa ha qarin sheeg cidda kuugu dhow u sheeg si aad uga badbaado daawadeyntaasi kusoo koobaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu